ahaantii nabadda waa wax loo wada baahan yahay. nabaddu muhiimadda ay leedahay waxa ogaan karaa qofkii colaadkan oo kala ah. colaaddu nooc walba ay leedahay waa colaad, haddana midda sokeeyaha way ka xanuun badan tahay colaadoo dhan. marka nabadda muhiimaddeeda iyo macaankeeda qofkaas ayaa dareemi kara. run ahaantii aniga ma rabo inaan waqti dheer sii hadalno, hawshaan waqti dheer baa la soo geliyey. waa la isku dayey dadka deegaanka way usoo gurmadeen reer Xeraale, qabiil ahaan usoo gurmadeen, dad magac karo la sheegta. intaba ma aynan suurtagelin, waqtigeeda wax ka dhimanaya. hadda dawladdii federaalka Soomaaliya oo maaragtay fulinteedii iyo baarlamaankeedii iyo guddiyadii heshiisiinta wixii oo dhan hadda waxaad moodaa in laga wada shaqaynayo. fursaddan marka maanta taagan haddii aan dhab ah looga wada shaqayn waxaa adkaanaysa in nabaddii la helo. xeerka maanta halkan lagu qoray waa xeer taariikhda geli doona insha allahu tacaala. adduunyada taariikhaha haddaad akhriso cid kasta waddamada hore u maray dhammaan waxay soo wada mareen colaado sokeeye, mid ahli ah. waxay kaga gudbeen dhammaantood inay xeer wada dhigteen ay wada ilaashadaan. xeerku qof gaara uu la jira ma lahan, wuxuu ilaalinayaa nabadgelyada shakhsi kasta. qof marka koowaad qofka bini aadamka ah in isaga nabadgelyadiisii qof ahaaneed la ilaaliyo waa sida shuruucdu adduunka oo dhan isku waafaqsan tahay. marka xigana qofkaas horumarkiisii laga shaqeeyo. xeerkan qodob ka mid ah rabo inaan dul istaago oo ah qodobka saddexaad. qofkii gala baldambiyeed sida kicinta bulshada, qodobkaas waxaan rabaa in si fiican loo fahmo. ciqaabtiisuna way la socotaa. maxaa ah kicin bulsho? kicin bulsho waxaa ah qofku inuu magaalahan oo kale uga sheekeeyo dhibaatadii lasoo maray, oo uu ka sheekeeyo dhibkii uu geystay walaalkiis. waxay ka mid tahay kicin bulshay ka mid tahay. waxaa kicinta bulshada ka mid ah in laga sheekeeyo waxyaabaha nacaybka ah. haddaa arad ummad islaynaysa ama isdilaysa, dhibaatadu kama bilaaban in la isdilo, waxay kasoo bilaabatay hadalla nacayb ah oo muddo la akrinaya kasoo bilaabatay, oo la yidhaahda reer hebel way xun yihiin ama hebel waa xun yahay. in la akriyo wararka noocaasa waxay ka mid tahay kicinta bulshada, in laga digtoonaadaan rabaa. marka waxaa kaloo ogaataan xeerkan ciidanka amniga haysta. qofkii marka markhaatina loogu helo isagoo ka sheekaynaya colaadahaas oo ka sheekaynaya nacaybka reer ka mid ah reeraha reer Maxamed ama deriskeeda ah, waxay ciidan ku idman yihiin inay dadkiisa ku qaadaan. isaa loogu baraarugsanaadaan rabaa oo san lagu kalsoon. qodobkaasi marka waa qodobka ugu muhiimsan nabadda aan ka sheekaynayno. waxyaabaha kale oo qoriga waa qof walba waa fahmi karaa. qoriga dhibaatadiisa la fahmi karaa, qof in la dilo waxay tahay waa la fahmi karaa. laakiin kicinta bulshada macno badan bay leedahay, in lagu baraarugaa la rabaa. waxaan kaloo rabaa inaan si gaara ula hadlo dhalinyarada. dhibaato ayaa ku dhacday dhalinyarada reer Xeraale. markaa reer Xeraale reer Huushana waa ka mid, oo Huusha iyo Xeraale laba iman kala ah isku mid ah. dhibaatada ku dhacday waxaa ku dhacday mid nafsi ah, mid waxaa ku dhacday maskaxiyan ah, waxaa ku dhacday mid maal, waxaa ku dhacday walaalahoodu ay waayeen oo haddana gacmahooda ay ku waayeen. waxaa looga soo kaban karaa in walaalnimo ay hadda abuuraan. inay la tartamaan dhalinyarada kale ee asaagooda ay deegaamada kale la midkaa degan. waxay kula tartami karaan inay horta u baratamaan waxbarashada. qof kasta intuu wax baran karo ama uu diin baran karo ama uu maadi baran karo inuu barto. dowladda federaalka ah waxaan ka shaqaynaynaa inaan hormarino xarumaha waxbarashada iyo macallimiinteeda inaan hormarinaan ka shaqaynaynaa. maantana waa lasoo kormeer. dadku haddaysan waxba baran bulshooyinka kale way ka harayaan.